shan arrimood oo dila ama burburiya caafimaadka kelyahaaga waxaa laga yaabaa inaad si joogto ah u samaysid oo aad caadaysatay. haddaba intaan u gudugelin waxaan si gaar ah kaga codsanaa inaad follow isoo dhahdid haddii aadan horay follow isoo dhihin. sidoo kale muuqaalka like saar, repost dheh si uu dad badan u gaadho. mahadsanid. haddii aan ku hormaro qodobka ugu horeeya, cabista biyaha yar ama aadan cabinba xaddiga maalinlaha oo jirkaaga u baahnaa. cabista biyaha yar, oonka, fuuqbax waa waxyaabaha ugu badan ee dhaabaca ama wadila kelyaha. sidaa daraaddeed waxaa wanaagsan inaad cabto biyo kugu filan. raggu waa inay cabaan qiyaastii 12 koob oo biyaha maalintii u dhiganta 3 litir. sidoo kale dumarkana waa inay cabaan qiyaastii 9 koob oo biyaha iyana u dhiganta 2.2 litir oo biyaha maalinkii. qodobka labaad, bulshada Soomaaliyeed aad ayay u samaysaa, mar walba way caadaysteen, waa isticmaalka daawooyinka bilaa dhakhtarka. qofku waxaa laga yaabaa inuu si fudud farmasigu aado ugu soo iibsado daawo iyadoo aan u qorin dhakhtar. gaar ahaan daawooyinka kelyaha dila ama burburiya waxaa ka mid ah daawooyinka kaarjibinta ama xanuun baabiyaha, magacay doonaan ha wata sida paracetamol, paramol, ibuprofen, waxay doonaan ha noqdo. guud ahaan daawooyinka kaarjibiyaha waa waxyaabaha ugu badan dila ama dhaawaca kelyaha. waxaa wanaagsan inaad joojisid isticmaalka badan daawooyinkaas. si gaar ah dumarka bil walba ayay u isticmaalaan, gaar ahaan markay u joogto dhiigga caadada. si ay xanuunka u yareeyaan waxay isticmaalaan kaarjibinta. waxaa wanaagsan ama idinkula talin lahaa inaad si dabiici ah aad u yareysaan xanuunkaas, sida inaad isticmaashid kubaayadda ama cinjirka biyaha diiran lagu shubo oo aad saartid qaybaha hoose caloosha ama meesha aad xanuunka ka dareemaysid. mar walba isku day inaad si dabiici ah aad u yareysid xanuunka. jooji isticmaalka badan daawooyinka bilaa dhakhtarka. waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha kelyaha dila ama dhaawaca isticmaalka badan muqaadaraadka sida shiishada, sigaarka, qaadka, vaabka iyo guud ahaan muqaadaraadka. sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha kelyaha dila cunista cuntooyinka milixda ama cusbada ay ku badan yahay. isticmaalka badan milixda ama cusbada waxay keenaan inay sodiumta badato. mar walba jirkaaga maadada sodiumka ay ku badato waxaa ziyaada cadaadiska dhiigaaga. haddii cadaadiska dhiigaaga uu kacana waxay saameyn karaan ama way dhaabici karaan kelyahaaga. sidaa daraaddeed waxaa wanaagsan cunooyinka aad cunaysid inaad ku yaraysid milixda ama cusbada. waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha kelyaha dila xakameyn la'aanta cudurrada daba dheeraada ama chronic disease loo yaqaan sida macaanka, dhiig karka iyo guud ahaan cudurrada daba dheeraada. mar walba waxaa wanaagsan qofka inuu la socdo. haddii qofku uu leeyahay dhiig karka, mar walba waxaa wanaagsan inuu la socdo, inuu kacsan yahay, inuu normalku yahay. haddii sidoo kale macaanka uu leeyahay, mar walba inuu la socdo. sidoo kale daawooyinka dhakhtarka u qoran inuu qaato amaba dhakhtarkiisa uu la socdo si mar walba uu ogaado in normalka uu yahay amaba uu kacsan yahay. fadlan qaybta hoose comment waxaa kusoo qortaa haddii aad leedahay caadooyinka aan soo sheegay mid ama laba ka mid ah. sidoo kale qaybta hoose ee commentiga ka wac asxaabtaada meeshan ku dheh si ugu faa'iidaystaan muuqaalka. ha iloobin inaad repost dhahdid si uu dad badan u gaadho. mahadsanid.